Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Bulshadiyo idil ayaa ka hortimid oo diiday fikraddiisa, kuna tilmaantay wiil doqon ah kaa oo weligii aan ku guulaysan doonin gaaritaanka yoolkiisa. Sidee haddaba fikraddii waalida ahayd ee wiilkii faqiirka ahaa watay ee la noolaa waalidkii uga dhigtay maanta nin caan ka ah dunidan isla markaana guulaystay? Haddaba Hawanji wuxuu ahaa wiil dhalinyaro ah oo hami sare leh. Wuxuu qoray sheeko waali ah oo aad u qariib ah, wuxuuna jeclaa in sheekadiisa waalida ah loo bedelo musalsal cajiib ah oo dunida idin laga daawado. Waxayna ka hadlaysay sheekadiisa waalida ah isla markaana uu jecel yahay in muuqaal loo bedelo shakhsiyaad dhalinyaro u badan oo daymaysan, noloshuna ku adag tahay. Wuxuuna Hawanji qoraalkiisa oo haddaba musalsal dunida qabsaday loo bedelay ku leeyahay dadkaasi daymaysan ha loo qabto tartan dhimasho ah. Ciddii ku guulaysata tartanka dhimashada ah awood ha u yeelato in ay hesho lacag tiro badan oo ay deymaha isaga bixiso. Hawanji ayaa sheekadani markii dambena musalsal cajiib ah oo caalamka qabsaday noqotay qoray 10 sano ka hor. Wuxuuna isku dayay dhowr jeer in uu sheekadani ka iibiyo shirkadaha soo saara musalsalada si ay sheekadiisa ugu sameeyaan musalsal soo jiidasho leh. Laakiin nasiib darro, in badan oo ka mid ah shirkadaha soo saara aflaamta waa diideen in sheekada Hawanji ee cajiibka ah u bedelaan musalsal, kadibna soo saaraan shaashadaha caalamka. Waxayna ku sheegeen sababta ay u diideen in sheekada Hawanji ugu bedelaan musalsal in ay tahay qarashaadka tirada badan ee uu u baahan yahay musalsalka oo aan macquul ahayn, iyo midda kale oo ah in qaar ka mid ah shirkadaha aysan ku qancin sheekada Hawanji. Waxaa kaloo jiray qaar ka mid ah shirkadaha oo ku tilmaamay sheekada Hawanji mid fashil ah oo ciyaalnimo iyo maangaabnimo ka muuqato. Hagaag, waxaa jira dunidani shakhsiyaad aad garab iyo taageero ka dalbanayso oo aad malaynayso saaxiibo horumarkaada jecel, laakiin mar walba doonaya inay ku niyajibiyaan isla markaana aad ka harto riyadaada. Kuwaani hala saaxiibin, sirtaadana hala wadaagin. Haddaba Hawanji ayaa dareemay niyajab weyn kadib markii dhammaan shirkadaha soo saara musalsalada ay diideen in sheekadiisa ka iibsadaan oo ay ka sameeyaan musalsal xiiso leh. Laakiin Hawanji wuxuu go'aan buuxa ku gaaray in uu marnaba isdhiibin. Wuxuuna sii waday qurxinta naashnaashada sheekadiisa iyo isku daygiisa in uu iib u helo sheekada. Intii uu xaaladani qallafsan ee kadeedka badan ku jiray, dhowr jeer ayuu ku habsatay xaalad niyajab ah oo sanadkii 2009 gebi ahaanba waa shiiday oo wuxuu ka baxay suuqa aflaamta iyo musalsalada. Wuxuuna iska bixin waayey kirida qolkii yaraa ee uu ku noolaa, wuxuuna ku qasbanaaday in uu ayeeydii la noolaado. Aad bay u sii xumaatay xaaladiisa dhaqaale. Inta uu ayeeydii la noolaa dhowr sano ayuu baagamuuddo ahaa oo shaqo la'aan weyn ayaa ku dhacday. Intii uu xaaladani shaqo la'aanta ah ku jiray ayay dhaafeen intii yarayd ee lacag ah uu haystay, kadibna wuxuu bilaabay in uu bangiyada deyn ka qaato. Dhanka kalena wuxuu ku dadaalay in uu shaqo helo, laakiin nasiib darro, dhammaan lacagihii uu ka soo amaahday bangiyada waxaa ka qaatay shakhsiyaadkii deynta ku lahaa. Mar kale ayuu haddana ku qasbanaaday in uu raadsado lacag deyn ah, wuxuuna amaah ka helay markaani ayeeydii, taas oo soo deymisay qadar lacag ah. Weli Hawanji tilaabo waa qaadi la'yahay, waddooyinkana si xor ah waa u mari la'yahay. Si uu deynta ugu xoroobo ayuu Hawanji isaga iibiyey kombiyuutarkiisa gaarka ah kaa uu ku shaqaysan jiray. Inkastoo Hawanji lacag badan oo deyn ah ka soo qaatay bangiyada iyo waalidiintiisa, haddana weli waxaa lagu leeyahay lacag badan oo amaah ah. Mar uu Hawanji ka hadlay xaaladdiisa, wuxuu dhahay, meel kasta oo aan tago shaqana ka dalbado waan ku khasaarayey oo wax shaqo ah kama helaynin. Waxaa igu dhacay dhacdooyin badan oo murugo leh, waxaana ka mid ahaa in shirkadaha soo saara aflaamta shaqo ka raadsaday, laakiin mar kasta oo aan shaqo dalbado waxaan noqonayay qofka ugu horreeya ee la soo ceyriyo, laguna dhaho shaqo ma hayno. Tanina aad ayay ii murjisay oo walwal iyo walbahaar badan ayay igu reebtay. Qorshe walba oo aan dejiyo kuna doonayay in aan horumar ku gaaro, waddadiisa ayaa iga soo xarmaysay oo waxay ku dhammaanaysay fashil iyo guuldarro. Sannado badan ayaan ahaa baagamuuddo oo waddankaydii ladnaa ee Koonfurta Kooriya
ee aan u dhashay ka waayay wax shaqo ah, mana ahayn qof aan xirfad lahayn. Waxaan ahay qof soo bartay culuumta aflaamta, waxaana cilmigani ka soo bartay dalka Mareykanka, laakiin nasiib darro badan ayaa ii haysatay oo ii diiday in aan guul gaaro. Dhanka kale waxaan aaminsanaa in aan maalin guul gaari doono oo aan ka bixi doono xaaladani qallafsan ee ii hortaagan muddada 10 sano ah. Waxaana waday oo markasta isku dayayay in aan iibiyo sheekadayda waalida ah, laakiin nasiib darro markasta oo aan soo bandhigo ma helaynin cid danaysa oo iga iibsata, kadibna musalsal qurux badan ka samaysa. Waxaan la yaabi jiray marka aan arko sheeko aan xiiso badan lahayn oo ay iibsanayaan shirkadaha aflaamta sameeya, kadibna ay maalgelinayaan kana samaynayaan musalsal kaa oo marka dambe fashil ku dhammaada oo waaya cid daawata. Isla kuwaani ku fashilmay sheekadii ay hore u iibsadeen ee ay ka sameeyeen musalsalka fashilmay, marka aan u tago una soo bandhigo sheekadayda waxay ugu jawaabayeen, tani ma ahan sheeko xiiso leh oo bulshada dunidani ku nool ka gadmaysa, ee saaxiib qolkaagii mugdiga ahaa isaga laabo ama la imaaw wax xiiso leh oo la daawan karo. Haddaba Haweeney waa qof bini'aadam ah, 11 sano wuxuu la kulmayay dad niyadda ka jebinayay, kana hor imaansanaa fikradiisa iyo sheekadiisa waalida ah. Intaa kadib Haweeney waxaa ku bilaabatay in uu si tartiib ah u niyad jabo, yaraatana rajadii uu ka qabay in ay guulaysato sheekadiisa. Wuxuuna maalinba maalinta ka dambaysa u sii dhowaanayay in uu naco sheekadani waalida ah ee ay diideen dhammaan shirkadihii aflaamta sameynayay. Marmar ay ayadiisa iyo hooyadiisa ku dhahayeen, Haweeney ha isdhiibin, 100 sano ha ka soo wareegatee mar bay sheekadaada waalida ah qiimo yeela doontaa. Haddaba Haweeney asigoo xaaladani muddo 10 sano ah ka badan ku soo dhex jiray, kana qoostay dhammaan shirkadaha aflaamta sameeya, ayaa xilli subax ah asigoo gurigiisa jooga waxaa u soo dhacay telefoon. Waxaana lagu dhahay, ma Haweeney baa? Haa ayuu ku jawaabay. Waxaa lagu dhahay, waxaa ku soo wacay ee telefoonkaaga saaki soo garaacay ee kuu baahday waa shirkadda sanadahan dambe suuqa aflaamta qabsatay ee Netflix, waxayna kaa rabtaa oo saakay gogashaada u soo fariisatay sheekadaadii waalida ahayd ee 10 sano suuq aflaamta la dhex taagneyd, laakiin aad waysay cid ka iibsato. Haweeney ayaa aad u farxay, laakiin wuxuu is dhahay, amuu yahay qofkaani shakhsi ka mid ah asxaabtaada oo kugu ciyaaraya, bal aan hubsado, war qofkan ila hadlayow ma tahay shakhsi ka socda shirkadda? Haa ayuu qofkii ku jawaabay. Wuxuuna u sii raaciyay, waxay shirkadda diyaar u tahay in sheekadaada musalsalka samayso. Haweeney ayaa markii uu hubsaday telefoonka farxad darteed ilin ugu soo daadatay. Bilo kadib waxaa la guda galay in la sameeyo musalsalka maanta dunidani caanka ka ah ee lagu magacaabo Squid Game. Waxaana la shaqaalaysiiyey tiro jilayaal ah. Haweeney wuxuu kalsooni weyn ku qabay sheekadiisa waalida ah, waayo waxay ahayd sheekadani mid aan horay dunidani looga arag. Dhanka kale, markii la jilayay musalsalka, waxaa jiray shakhsiyaad ka mid ah ragga wax jilida ku jiray inay Haweeney ku dhahayeen, Haweeney jow amuu fashilmaa musalsalka. Asiguna wuxuu ku jawaabayay, mar musalsalka shaashadaha la soo saaro, waa hubaa inuu guulaysan doono, dunidana ka heli doonto. Haddaba sidii uu Haweeney sheegayay ayay noqotay. Markii musalsalka la soo saaray shaashadaha, waxaa bishii ugu horreysay daawaday 100 milyan oo ruux, taas oo ka dhigtay musalsalkii ugu daawashada badnaa bishaasi. Heer wuxuu gaaray musalsalkan uu adeega internetka ee welibana aad ku horumarsan ee dalka Koonfurta Kuuriya culays ku yimaado, maadaama bulshadii oo dhan internetka ku foorarto oo ay daawanayaan musalsalka. Wuxuu musalsalka ku soo baxay musalsalkii ugu fiicnaa ee reer Koonfur Kuuriya. Haweeney wuxuu ku soo baxay asigana qoraaga dhanka musalsalada ee ugu caansan dunida, gaar ahaan dalkiisa Koonfurta Kuuriya. Xoolana warkooda iska daa. Haddaba Haweeney iyo sheekadiisa waxay noo cadeeyeen, haddii aad ku kalsoon tahay waxqabadkaada, caqabad walbaba ha ku hortaagnaatee, maalin ayaad guulaysan doontaa. Adigu naftaada ku kalsoonow, wadna waxa aad ka shaqaynayso, guul waad gaari doontaa insha Allah.